guusha madaxweynaha golaha baarlamaanka adduunka ma waxaanu ku qasbannahay inaynu booqanno ama aynu soo siyaaranno arrintii ka dhacday Minneapolis qaasatan degmada 10aad jawaabtu ahaa dhowr bilood ka hor waxaa tartamaya wiil la yiraahdo magaciisa Nasr Warsame wiilka wuxuu ka yimid magaalada Muqdisho isla xilligaana wuxuu la tartamaya gabar Hindiya isla waqtigaasna social media waxa isqabsaday sawaxan iyo khaylo gooniya iyada oo la leeyahay ma doonayno mana u codeynayno Nasr Warsame halka inuu codeynayno wiil hawiya waxaana loo qaatay inaan u codeyno gabadha Hindida ah isla markaasna doorashadii ayaa dhacday iyadoo ay dadku qaarkood u arkayeen inuu guuleysan karo Nasr Warsame isla meeshii ayaa lagu furay ama laga dhaliyay buuq si doorashada dib loogu dhigo isla xilligaasna waxaa si meeldahan iyo si toos ah u soo galay siyaasiyiin iyo culamo ku dhaqan Minneapolis iyaga oo ka heelinaya wiilka ka soo jeeda magaalada Muqdisho bilo kadibna warar hoose ayaa sheegaya in lacag lagu bixiyay in la damiyo ama hoos loo dhigo campaign-ka Nasr Warsame waana sababta keentay inuu maanta ka soo muuqan waayo social media isagoo doorashadiisu ay maalmo ka harsan tahay waxaan filayaa hadda inaynu isla fahanno sheekada bilowgeedii gundhiga hadalka meeshan u wadno isla xilligaana waxaa bannaan kursi uu macnihiisu yahay madaxweynaha golaha baarlamaanka adduunka kursiga wuxuu yahay mid furan una tartami karaan wadamada Afrika qayb ka mid ah wadamada Afrika u tartamayso waxaa ka mid ah dalka Soomaaliya gabar ka soo jeeda dhanka Puntland ayaa u loolamaysa kursigan suurtagal ma tahay inaynu ku caawino gabadhaas inaga oo ka soo sheekayna dhibaatooyinkii loo geystay wiilka Soomaaliyeed ee loo xirtay shaatiga qabiilka haddii jawaabtaadu maya tahay waxaan kuu sheegaynaa haddii jawaabtu mayada aad tiri waxaa tahay qof damiir leh damiirkiisa weli nool yahay waxaana tahay qof karti leh isla jawaabta aad bixisay ayaa arrintaa ka falcelinaysa waxaana suurtagal ah inaynu u hiilino markan Dr. Tulia Ackson oo ah gabadha ku guuleystay madaxweynaha golaha baarlamaanka adduunka oo iyadoo ka soo jeedo dalka Tanzania waa fariin kaloo kule waxaan taageeraynaa weliba aynu garab istaagaynaa Dr. Tulia Ackson waa gabadha mudan inay xilka qabato hadiiba adigu aad aaminsan tahay inuusan degmada 10aad xilka qaban karin wiil ka soo jeeda magaalada Muqdisho su'aashu waxay ka taagan tahay heer kulka qabyaaladu heerka ayuu joogaa 30 sano soo socda yaa faa'iido ku qabi doona yaa khasaare ku qabi doona